بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد maanta madrasada aynu dhagax dhigayna ee qabr Daawud ilaahay ha inagu anfaco kuwa walid saalax oo waxaan ku diintana anfacana Allah ka soo saaro barakallahu waxa maanta madrasad quraan laga dhagax dhigay deegaanka qabr Daawud ee ku yaala iridda hore ee laga soo galayo gobolka Awdal madrasadan ayaa waxa hirgelinaya dhalinyaro ku midoobay ururka horumarinta qabr Daawud munaasabad ballaaran oo loo qabtay dhagax dhigga madrasadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Dila mas'uuliyiin kala duwan aqoon-yahano madax dhaqameed bulshada deegaanka iyo gudida ururka horumarinta qabr Daawud ee fulinaysa mashruucan khayriga ah ugu horeyn waxa hadalka iska daba qaatay injineer Bashiir Cabdi Ibrahim oo ku hadlayay afka ururka horumarinta qabr Daawud iyo Khadar Maxamed Cismaan oo ah xogayaha ururkani waxayna yiraahdeen haddii aan ka hadlo ururka laftiisu uu cusub yahay wuxuu jiraa 2 bilood bishii lixaad ayuu bilaabmay ururkan oo u taagan horumarinta bulshada qabr Daawud kulli qabr Daawudna wuu soo dhaafi doonaa insha Allah degmada wuu anfici doonaa ururkan sida aan quraanka ugu bilownay maadaama dad islaam nahay ururku wuxuu isla gartay inuu ka bilaabo wax qabadkiisa madrasadii quraanka Allah barakeeyaan leeyahay wax qabadkana Allah inoo barakeeyo haddaan ka warramo maxaan ku raadayay baahida maanta madrasadan qabr Daawud ee dhagax dhigayno anu 1996 ayaan arday ahaa halka ka kaliyi jiray marka waxa weeyaan anigu madrasad meel ay ku jirto ilaa 1996 laga soo bilaabo ilaa maanta madrasad quraan oo ay ardaydu toos u tagaan malaha haday qabr Daawud tahay iyo haday meelaha kala tahayba marka fursadan maanta cidii heshay waxay noqonaysaa caruurta yaryar ee maxaan ku raadayay deegaanka inta leeg ee ballaaran degan marka ilaahay baan ugu mahadinana waxana keenay dadkii wax u bartay ee deegaanka ahaa iyo dadkii degmada oo dhan ee dhulkan deganaa oo dhamaantood isku duuban ay qorshaani ka yimiday runtii madrasadu waxa weeyaan aad iyo aad bay u faa'iido badan tahay ilmaha in quraanka laga dhiso oo lagu tarbiyadeeyo waxa iyaguna dhankooga soo dhaweeyay madrasadan khayriga ah Caaqil Ibraahim Ismaaciil Guleed iyo Xuseen Xasan Maxamed oo ku hadlayay afka deegaanka waxayna u mahad celiyeen ururka horumarinta qabr Daawud waxaan joognaa qabr Daawud waxaan dhagax dhigaynaa ama dhismaheega u diyaarnahay madrasada qabr Daawud ee quraan xifdiga waxaan u ducaynaynaa cid soo agaasintay oo dhalinyarta qabr Daawud ama aan idhaaho reer Dila aad iyo aad u mahadsanyihiin way dadaalayaan annana waan u ducaynaynaa aad waan soo dhaweynaynaa hawshaasaan ku jiraa waxaan dadka u sheegaynaa in loo baahan yahay hawlaha iyo hawlo ka badan in dadku ku soo biiraan oo ay noloshii labaad annaga noo tahay qabr Daawud ahaan nolosha koobaad waxay ahayd iskuulkii oo helay oo ay dhiseen Raashi Xasan Taani noloshii labaad oo maanta aan taaganahay oo ay namadii dalka u dhashay diyaar u noqdeen inay dhisaan madrasad quraan xifdiya oo lagu dhisaalka qabr Daawud annaguna aan aad iyo aad ugu faraxsanahay anuna hayna dadkii dhigan lahaa ee ka faa'iidin lahaa iyagana waxaan ugu ducaynaynaa inta ayaan ka badan la kirsiyo miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro waana ka gudoonay waana wixii laga sugayay dalkii dadka ugu dhasheen aad iyo aad baan ugu gudoonay waxaan mahad u celinayaa ururka ee horumarinta qabr Daawud ee dhalinyarada soo agaasintay hawshan aan hayno maanta taasi oo maalintii koowaad annaga noo ah farxad ahaan oday ahaan dhalinyaro ahaan iyo bulshada taasi oo ku buurinayno iyagana inay anfacaan in kale oo degmada ama deegaanka horumarkooduna meel kasta oo soo gaadho aan ugu ducaynayno waa horumarintii labaad ee ku xigtay Sheekh Xasan Taani ilma Sheekh Xasan Taani oo tii koowaad ahaa bulshadana oo ah dhalinyaradan ururkan horumarinta qabr Daawud oo ah kii labaad waan ka mahad celinaynaa geesta kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay aqoon-yahan Maxamed Axmed Aqli iyo Sheekh Saleebaan Faarax Kaamil waxayna bulshada ku dhiirigeliyeen inay ka faa'iideystaan madrasadan
waxaan aad u mahad celinayaa cid kastoo qaadhaanka ka soo qayb gashay cid kastoo qaadhaanka soo dirtay madrasada Qabri Daawud ku soo qaadhaanka ka soo qayb qaadatay waxa leenahay ilaahay ajar xasanaad ilaahay nagu diro halkaad ka soo saarteen ilaahay badal khayr qaba ilaahay nagu bedelo taas waa taa qodobka labaadna ka hadlaa waxa weeji dadka deegaanka soo jeeda maanta waxaan ilaa dhisayaa madrasad oo meel barakaysan anu fikraanteeda waxaan qabaa ummadda in marka ugu horeysa laga soo dhiso diin ahaan sababtoo ah ciyaalkan halkan ka soo bixi doona waa u bixi mustaqbalka ubaxa mustaqbalkana waa in marka ugu horeysa diinta laga dhisaa marka diinta laga dhisana iskuulka loo wareejiyaa maanta waxa chance u yeelateen inaad madrasad halkan laga dhiso insha Allah halkan waxa quraan bad ku baro doontiin waxa ka soo bixi doona caruur yar oo xifdul quraan ayaa ka soo bixi doona taasna taaban ka baxaya ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dadka deegaanka jooga markaan la dhiso insha Allah waxaan jecelahay inaad ilaashatiin inaad hantidaan la dhisay walaalihiin ugu soo tabceen inaad dhowratiin macallinkii dhigi lahaana hadduu Allah wada golaado ururka maanta walaalihiin halka madrasada ka dhisaya ayaana macallinkii dhigi lahaana insha Allah iyakaana dusha u qaadi doona saddex qof baa ka aray nabiga cali sallallahu saddex baa ka aray waladun saalih oo soo duceeya sadaqatul jaariya sadaqadii jaariyadii waa tan lagu baranayo diintaas waladka saalixina waa waladkii aad quraanka bartay weey kaasa ku soo duceyn doona aakhirana ku anfici doona xitaa cimrigaaga waxa la yiri ninku kuyo 10 sano ka hor dhintay hadduu ilmihiisu ka dambeeyo 40 sanadood ama 30 sanadood oo sidaa uu tarbiyeeyo oo quraanka u baro oo diinta baro oo uu soo duceeyo ilmahaasi 80 ka sano waalidkiisa uu ka dambeeya cimrigii aabaha way ku biirayaan waayo salaadu tukadaba isa salaad kale buu leeyahay isagoo halkan usqamid soon ku soomo soon kala isna waalidkiina loo qoraya way waalidku soo tabcay sababta laha marka waa yaani muhiimadda inta leeg ayay leedahay in lagu dadaalo diintu ugu dambeyn waxa hadalka soo gabagabeeyay oo iska daba qaatay isku duwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta degmada Dila Xasan Saleebaan Ibraahim mareeyaha biyaha ee degmada Dila Ahmed Ibraahim Cilmi iyo gudoomiyaha degmada Dila Aadan Cismaan Sidci waxaana yiraahdeen dhagax dhiga madrasada quraanka kariimka deegaanka Qabri Daawud oo ay hirgeliyeen oo dhisayana ururka dhalinyarada deegaanka Qabri Daawud aad bay ugu maasan yihiin kulli waxyaalii danta guuda ee dadka ka dhaxeeya dan guuda waxyaalo loo baahan yahay ilaaliyo dadka ka wada shaqeeyaan madrasaduna waxay quraanka wax la bartano waxa ugu khayr badan quraanka kariimka ugu khayr badan qofka barta dadkana bara ayaa ugu khayr badan quraanka kariimka ayaa ugu khayr badan wax la bartay adduunyada iyo ifka iyo aakhirada ku anfacaya marka aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarada soo abaabushay garatay in deegaanku u baahan yahay meel quraan lagu barto kulli iskoolka hore uga dhisnaa maanta madrasada quraanka kariimka in lagu soo biiriyo oo ardaydu ka barato quraanka kariimka wax muhiim ah oo deegaanku noo baahnaa aad baan ugu bogaadinaynaa aad baan ururka inta insha Allah taala inuu ka sii horumaro oo kulli degmadana ka qayb qaato oo wixii yala gobolka ka qayb qaato oo wax loo baahan yahay aad baan u bogaadinayaa ururka oo mahadsan yihiin saaka waxaynu joognaa Qabri Daawud waxaynu dhagax dhigaynaa madrasada Qabri Daawud horumarka dhalinyarada bulshada Qabri Daawud ku nool aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadka ka soo qayb gashay maamulkii degmada oo gudoomiyihii hogaaminayo waxaan ku cuqaashi dhalinyarada bulshada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka soo qayb galkan saaka dhagax dhigtan madrasadan Qabri Daawud horta ilaahay baa mahad iskale ani awalka ugu horeysa farxad gooni ay tahay moogtay iskuulka markii la dhisay qofkii aasaasay ilmo shaqaasataani kala tashaday baan ahaa moogtay ee bulshada waxa loo qabta lahaa moogtay iskuulkii way naga ajiibeen ilaahay baana iska mahad iskale waxa iskuulkii maanta waxaan ku wuxuu noqday horumarkii koowaad horumarkii labaadna waxa noqotay madrasadan moogtay marka bulshadu hadii ay isku tagto oo dhan wax ka wada aragto oo gacmaha isqabsadaan horumar bay gaadhaan moogtay marka dhalinyartan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa fikirkan waxaan ku u boogisay ee hantidan saaka moogtay waxaan ku dhisay moogtay caruurtana waxbaan baranaa hareeraan oo ka joogsanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi nimanka aadu dadka keenena waanu mahad celinaa jeebka ka soo saareenna wax khayr qaba Allah ugu bedelo waana dhalinyar soo koraysa waa meeshii doonada ha joogaan waanu mahad celinaa ilaahay baa mahadle Cabdisalaam Ali Ismaaciil Cabdisalaam Suldaan warbaahinta madaxa bannaan ee Xogsan TV Boorama